بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii toddobaadlaha faalada toddobaadka oo aad ka dhegeysataan aaladda warbaahineed ee Sahal Media Network sitibaankiiba mar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii faalada toddobaadka. faalada toddobaadkanna waxa ay ku saabsan tahay musuqmaasuqa ku faafay dowladnimada Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo. musuqmaasuqu waa caqabada ugu weyn ee hortaagan horumarka dowlad dhiska iyo adeegyada bulshada ee Soomaaliya. waxaa si isa soo taraysa loogu baraarugay sida uu cudurkan uu ugu faafay dhammaan heerarka maamul ee dalkeena, laga bilaabo dowladda dhexe ilaa dowlad goboleedyada. waxaa xusid mudan in musuqmaasuqu uusan ku koobnayn jeebka oo la buuxiyo, balse uu si toos ah u saameynayo caafimaadka dadweynaha, waxbarashada ubadka, kalluumeysiga, kheyraadka badda iyo bariga cagaagan, iyo xitaa milkiyadda dhulka ummadda. musuqmaasuqa iyo hanaanka siyaasadeed ee dalka xiriirka ka dhexeeya. musuqmaasuqu wuxuu la kowsaday dhalashadii dowladnimadeena 1960kii. waxaa ogaan iyo maqal intaba laga dheregsan yahay in dowladihii rayidka ahaa ee iska kala dambeeyey oo dalka xukumayay inta u dhexaysay 1960kii ilaa 1969kii ay ahaayeen kuwo aad ugu dhex jiray musuqa iyo wax isdabamarinta, taasoo horseeday in uu dalku horumar la taaban karo uu gaari waayo. xilligii ugu wanaagsanaa ee dalku musuqa iyo wax isdabamarinta uu ka nastay waxay ahayd xilligii uu militariga talada dalka uu la wareegay, gaar ahaan sanadihii u dhexeeyay dhammaadkii 1969kii ilaa 1977. inta u dhexaysay xilligaas dalku wuxuu gaaray horumar la taaban karo haddii aan lahayd xagga warshadaha, isbitaalada, iskuulada, jaamacadaha iyo horumaro badan oo kale. balse nasiib daro dalku wuxuu galay dagaal uusan ku guuleysan 1977 ilaa 1978. dagaalkaas oo aad u aafeeyey dhaqaalihii dalka iyo horumarkii socday, waxaana soo laba kacleeyey musuqii kadib markii hay-adihii dowladdu ay daciifeen. musuqmaasuqu wuxuu dhaxal siiyey dalka qalalaaso iyo dagaalo dalka gudihiisa ka abuurmay, ugu dambeyntiina sababay 1991dii in dowladnimadeennii ay burburto, dadkeenniina ay islaayaan. 10 sano oo dalku galay dagaalo sokeeye. taariikhdu markay ahayd 2000 waxaa magaalada Carta ee dalka Jabuuti shir dib u heshiisiin oo Soomaalida uga socday ka dhashay Jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya. nasiib darrase hogaamadii dalka ee soo maray 2000 ilaa 2025 oo aan hadda joogno waxay talada ku yimaadeen laaluush ay bixiyeen. maadaama Soomaalidu horey u tiri gacan nadiif ah ayaa wax daahirisa, dowladahaas dhammaantood waxay ku fashilmeen inay xal u helaan musuqmaasuqa ragaadiyey hanaankii dowladnimo ee dalka. cilada ugu weynna waxa ay tahay inay ayagu ku yimaadeen laaluush iyo musuqmaasuq. bal aan eegno sida wasaaradaha dalka oo dhan uu u saameeyey musuqmaasuqu. wasaaradda maaliyadda, qorsheynta, gaashaandhigga, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo amniga ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee lagu eedeeyo musuqmaasuqa. waxaa caadi noqotay in heshiisyo siyaasadeed loo galo si qarsoodi ah, iyadoo la tixgelinayo danaha shakhsiyaadka xilalka haya markaas, halkii la tixgelin lahaa maslaxadda guud ee dalka iyo dadka. warbixinno madax bannaan ayaa muujinaya in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu intuba aysan lahayn nidaam isla xisaabtan oo dhab ah, halka xisaabaadka dowladda badankood aysan marin kormeer madax bannaan. dhiibashada laaluushka ayaa noqotay albaabka ay dad badan u maraan helidda adeega dowladnimo. bal aan eegno waxa ka dhexeeya musuqmaasuqa iyo qabyaaladda, iyo sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ugu aafoobeen hanaanka qabyaaladda. qabyaaladda iyo ninjeclaysigu waa aabbaha musuqa.
qabyaalada iyo ninjeclaysiga ayaa si baan ugu milmay hay-adaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taasoo wiiqday shaqaaleynta hufan iyo u adeegidda shacabka si cadaalad ah. xilalka muhiimka ah waxaa lagu saleeyaa qaraabo iyo xulufo siyaasadeed halkii lagu saleyn lahaa aqoon, karti iyo daacadnimo. arrintan waxay sababtay in canshuurta laga qaado ganacsatada iyo hantida bulshada loo adeegsado dano gaar ah, iyadoo adeegyada sida isbitaalada, dugsiyada iyo caafimaadka la xakameeyo ama la siyaasadeeyo. dadka saboolka ah ee u baahan adeegyadaas ayaa si joogto ah aan u helin adeegyadaas. musuqu waxa uu dhex galay hanaan walba oo dowladdu lahayd. dhulkii ummadda oo la bixiyey, badeennii oo la kireeyey. qayb muhiim ah oo ka mid ah musuqmaasuqa ayaa ku dhacaya bixinta dhulka danta guud ee ku baahsan dalka oo dhan. dhul badan oo horey ugu jiray gacanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa la siiyey dad gaar ah ama shirkado, iyada oo aan la marsin habraacyo sharciyadeed, laguna iibiyey qiimo aada u jaban si ay macaash aad u badan uga helaan kuwa sida sharci darrada ah loo siiyey. diiwaanka dhulka ayaa ah mid aan casri ahayn, taasoo fursad u siinaysa in si fudud loogu takrifalo hantida shacabka. sidoo kale shatiyada kalluumaysiga ee ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu bixiyaan waxaa loo saxiixaa si qarsoodi ah, waxaana la siiyaa shirkado shisheeye oo laaluush laga qaatay. maraakiibtaas ayaa si aan xad lahayn uga gurta kheyraadka kala duwan ee badaheena ceegaagan, iyaga oo aan bixin canshuurtii ku waajibka ahayd oo saxda ahaa. sidoo kale dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ma sameeyaan kormeer joogto ah oo lagu ilaalinayo deegaanka badda, kalluunka iyo kheyraadka kale ee ku dhex jira badaheena. bal haddana aan eegno caafimaadka iyo waxbarashada. caafimaadka iyo waxbarashada adeegyo laga dhigtay ganacsi musuqmaasuq ku salaysan. adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ee shacabka loogu talagalay ayaa noqday meel kale oo musuqmaasuqu saldhigto. isbitaalada dadweynaha ayaa laga qaadaa lacag si aan sharci ahayn, xitaa marka adeega rasmiyan uu yahay bilaash, halka buundooyinka dugsiyada iyo shahaadooyinka waxbarashada lagu iibsado laaluush. macallimiin iyo shaqaale caafimaad ayaa la magacaabaa, taasoo si toosa u dhaawacaysa tayada adeegyada bulshada. haddaba dhegayste, su-aashu waxa ay tahay, xalka musuqmaasuqa miyaa la heli karaa? inkastoo xaaladdu ay tahay mid murugo leh, haddana xal baa jira haddii ay jirto rabitaan siyaasadeed iyo cadaadis bulsho oo joogto ah. waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso hay-ad madax bannaan oo u xil saaran la dagaalanka musuqmaasuqa, taasoo leh awood baaritaan, xeer dejin iyo dacwad keenis. hay-addaasi waa inay ka madax bannaan tahay saameyn siyaasadeed. waxaa kale oo muhiim ah in la hirgeliyo nidaamyo elektroonig ah oo lagu maamulo diiwaanka dhulka, canshuuraha iyo adeegyada dadweynaha ee kala duwan, si looga fogaado wax isdabamarin iyo laaluush. dhanka kale, bulshada rayidka ah iyo warbaahinta waa in la xoojiyo si ay door firfircoon uga qaataan kormeerka dowladnimada, iyadoo la furayo xafiisyo cabasho oo si ammaan ah loogu gudbin karo xogta musuqmaasuqa. haddaba gunti iyo gunaanadkii, musuqa maaha nasiib ee waa nidaam la dhaqangeliyey. musuqmaasuqu waa nidaam lagu naasnuujiyo in yar oo danahooda gaarka ah eegta, iyada oo lagu xadgudbayo xuquuqda shacabka intiisa badan. waa waajib qaran in la jebiyo silsiladaas. soomaaliya waxay u baahan tahay hoggaan daacad ah, nidaam hufan iyo bulsho ka dhiidhiya xatooyada hantidooda. taasi waa derbiga keliya ee lagu gaari karo dowladnimo dhab ah oo dalka iyo dadku ay yeeshaan. haddaba dhegayste, waxaa intaa noogu eg faalladeennii toddobaadlaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay musuqmaasuqa ka jira xarumaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. haddaba inta aan barnaamij la mid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah Axmed Sahal. sidaas iyo nabadgelyo.
السماء